بسم الله وحاربا إلان كهضلو أرين مالمهن بهيسة ميدياها براها بالشدة إذا عاد كستو خبح ضلك الصومالية هيسة باربا إلان كهضلو أرونا بدونا شيئا ما يواسر شيئا ما يوحانا يدن وضيا ورهي شو بالله أو كسباية شو للهيرها اللي بريك بي وحيل ورك حالي ودي يجي بتقول جويراري اللي ما ودده سوى هي ويل كيرو شيء ولا يرى يهدو قدقو ويقاري أبو ورد ورد يقرأ ولي ما يديم أنا قلت إذا عدل يشتي ورد الشركة كصوب حبار العيرية بيش السنة وريقا في عولي بدك يسنة أد بارو فرح سنة وركا على الساعة هدو الشباب إلى كل عليل ييو هدو سن إلى كل عليل يدون كل واجب ترى أنا واجبنا وحن لا يعي عبسيدا أرجع يميديها أتقوى عرفتين صح معها dadka waa la wada leelayay waa u dareeyeen buur alla ma adru cidisheen cabsiin baa idinka dhawaajisay dhibidima soo gaarin laakiin hadda aad gacanta ku wadataan hadda waxa la dooradu midida loo qalay la soo baxdaa beesha sida haday moodayeen sarmaajo wax ka celinayo oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay wax ka celinayaan annaguna ciidan Jubaland hayna oo qabaa'il aan hayo Jubaland qabaa'il haday noqotana wuu idin kor joogaa hadda wax ka tari kartaan maalin walba waa geynayna waana diraynaa idinkii inaga dhexdeena ilaahay uu ka baxay sidii jaba dagaal baad cilaamiseen anaguna way soo dhaweynayna aad baan idinku mahad celinayna dagaalka aad noo cilaamiseen dhexdeena shabaab kuma jira ilaahay baa ku jira uu ka baxay shabaabkuna awal beeshiis baa la ahaydeen awal beeshiiska la ahaydeen hadda bal ku soo mari kartaan isku daya aad baan u mahadsantihiin inaga iyo beeshiisaday dagaalka aad cilaamiseen way sugaynaa dagaalkuna kismaayo iman maayo balad xawo ka bilaabanaya wallahi waan dhartay بلد حاو قرب هاري بورقو انت هذا دقالك وقبل العملية كشمعية نصوص عنا واريو وروا بردي كرشوقنا ودي دول دقنا حاجات صوم وصعدا بدقم باطاي خافي وصل بدقم باطاي وحيرات هاي دقالك هذا علامسين هدول هارورين قرا إلى ليس وينو دريني كيو dadka kumar barsanina idinki anagu waan dagaalamaynaa kumar barsanina dadka kolka jabtaan baa dhina dawlad kala weelisay dadkii leen jiray koodadka iyo fadhiga weydiin jiray anagu aha dawlad kale lama imanin walikaas waxa idin tarmaaye nabada qaata haddii nabada qaada weeyaan walaynayna kuba noolaan deegaan qamba meesha aadaysaan la gaalbaydan dhalay nabadgelyo bismillah wasalaatu wasalaamu waxay la tahay marka horeysa waxaan tacsi u diraynaa ninkii islaamka ah ee dhintay ee gacanta ka xaqdaran ay dishay ninkaasi uu dhintay waxaan tacsi u diraynaa ehelkii iyo dhammaan dadka ka tegay ayaan horta iyo ummadda Soomaaliyeed baan uga tacsiyeenaa ilaahayna waxaan isaga u weydiinaynaa naxariis janno inuu Allah ka waraabiyo laakiin arinta meesha la weeye dadka nin baa dhintay reer hebel baa dilay wujuud baa dilay in horta la dambaabo oo hadal la iska dhuro waa laga fiican yahay dadkuna waxay ku fiican tahay walaalo waxa ku weeyday nin kastoo ninka reeb waxa kasta ku sameeyo walaalo wuxuu ku dhamaan waay walaalnimo iyo Soomaalinimo islaamnimo waxa horta ku dhaantaa ku jirto dadku wada degan waa la joogaa meesha waxa marka deegaanka haysteena waxaad sameeynaysan waxaad lahaydaan inta waad ka waraysan oo ogtiin saad dadka u galeyseen laakiin cid anagu ma lihin dad hala dulmiyo ma lihin laakiin ninkii dulmi wata horta isaga ku bixi ninkii dulmiga dhibaato wada isaga dulmiga dhibaato ku bixi waxaan lahaa waxa ka fiican waxaad nimanka waaweyn ee aabaayilada ee odayaasha ee la reer hebel baan leeyna salaamnaysan lagu dhaxjaa war nin ma dili karo nin kama adke waxay la tahay walaalnimada iyo Soomaalinimada iyo islaamnimada hal xaq dhowro af xumina nabadna uu ka fogaya coladna uu ku keenaa malay waa dad waaweyn baa tiina af xumada iyo aflagaadaad ku hadlaysan dadka qabaa'ilka aflagaadeynaysan waxa ka fiican idinkoo kasoo joogo wanaag ku bedelo xumaanta wadaan xumaana la idin qabin oo maalin walba abuuraysan dadku abuuraysan iyo nacayb aad abuuraysan waxaan laga joogo war islaamnimo ay deeqday walaalnimo hadii la joogo waayo oo la deey waayo nin walba wuxuu tabartiisa meesha dhigto waa la arki doonaa waa loo joogi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay ila tahay ميديا إن هذا اللي سمر مريو صح معه دينيا أو مفعنه ضدنا ما هان أو مفعنه وحاوي وحنا قم بلغت خليها شلي نينكي ورال كينها ودن تايوان كحنا هنا
ciddii dadka liinaysay inay dishay in baan ku qiyaasaynaa wax caddaynoo hadda suganoo lahayana ma jiro waxay ila tahay soomaalinimo unbaa dhulku inugu deeqi kartaa weliba inagu rixin baana qof hanjabahayo oo miidiya ka hadlaayana haddee qabiil hadda looma aanayn kara laakiin waa qalab maca qabiil inuu adeegsano annagu waxaan leenahay walaalaynu nahay si walaaltinimo ah oo islaamnimo aan u wada noolaanna haddana ciddii ka badin weyda haddee waadna wada tiri wixii xumaana qofkii wato aday kuu taallaa ninkii geela la raacsan jiraa la raacsan waa sidaasoo waa nabad sidaasaan ku dahayo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u tacsaynaynaa walaalkeen shigshigow oo addoon nin ka xaq dalani uu dilay waan u tacsaynaynaa intuu ka tegaynaa samirgii meelalaha siiyo intaa waxaa ii wehelisa shigshigow intuu dhintay inta ka dabadaysa waxaa jirtaa wax qofka bini aadamka uusan ilaawi karin annagu waxaan u haysanay shaafi raabi oo ahaa guddoomiyihii rugta ganacsiga j c c ahaana guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee dowladda federaalka waxaan u haysanay nin cadow aho oo maxaan ku idhaahdaay isku mabda aysan ahayn in uu dilay waxaa caddaatay oo u mareexaan caddaystay inay iyagu dileen gacantooda inay ku dileen waayo qofka bini aadamka ah aara waxa la yidhaahdo waxaa weeye wax maqnaa oo uu qofku geystay oo laga daba geystay annagu aaro waxaan u naqaanaa aaro hebel meeshaa waxay ka caddeeyeen shaafi raabi kaahin in uu mareexan dilay oo loogu aaray sida ay sheegayaan shigshigow annagu shigshigow walaalkaanuu ahaa nin soomaaliyeed buu ahaa nimaan ehelya rixibnahay buu ahaa waana u tacsiyanaynaa qabriga allaha waasiciyo mana aanaan dilin gacan ka xaq daran baa dishay waxaase mareexaan caddeeyey shaafi raabiina iyagu dileen afkooday ku caddeeyeen marka qofku haddii uu kuu sheego horta ninka islaamka ah dhiiggiisu ma qarsoomayo run ahaantii haddii la qariyo ma qarsoomayo shaafi raabi waxay caddeeyeen mareexaan inay iyagu dileen mar hadday caddeeyeenna haddii ciddii uu la dhashay wixii ay ka yeelayaanba ka yeelayaana taa ha ogaadeen waxay ka yeeli lahaayeenba ka yeeli lahaayeen unbay ka yeelayaane taa horta ha ogaadeen afkooday ku soo saareen waxaa kaleeto sideeda bannaanba miidiyaha marka aad ka hadlayso waxaa fiican waxaad yeelaysa inaad ku hadasho mareexaan wuxuu yidhi al-shabaab oo waddada noo banneeya waxaanu weerartamaynaa maxaan ku idhahdaay kuwadaanu yaanu weerartamaynaa waddada noo banneeya bay waxaa iyaga iyo al-shabaab ka dhexeeyey unbay uun ku hadleen ilaa xidhiir ka dhexeeyey bay ahaayeen marka waxay la tahay taana yeena beenaynina weerarka intay siday ula hadleen al-shabaab kaga dhabeeyaan weerarka ha soo qaadeen waan u diyaar garownay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين كل هذا وحنا من اوياشي iga horeeyay waxba meela ka tagin xaqiiqiyan ha ta hal aray ayaa lagu muxoday hadalka kaasoo ah wax saddex baa jirta saddex bay leedahay mugdi iyo abaar iyo col waxaa la yidhi mugdi waa mahtalako iftiin baa u maciina dharar baa ka macan bale col waa mahtalako waa waan baa u maciina oo nabad baa ka macan abaar waa mahtalako naqba u maciina oo guba ka macan bale nabad baa naas anagu hadda waxaan rabnaa xaqiiqiyan wax dhab ah waxyaabaha hadda miidiyaha ku jiraan ee dadka waxgaradka
beelaha Soomaaliyeed ka midka ah ay la taagan yihiin waa wax anaga dhibaatana waa dhibka asaga ah waxaan rabnaa Soomaalidu dhaqan bay leedahay curfiga xaqiisa markii la dhaqan bay leedahay dhaqanku muxuu ahaa qofku hadduu uu ku dilo inaad ma tahay oo kolkaaba aadan ka jawaabin oodan ogeyn xogta kolkaas inaad ka aaratid aarashay anoo maanaan aaranin waxaan laakiin sheegaynaa inaan aaranayno kolkii hore xog maanan haynin annagu xog maanan haynin masaa'ibaha Soomaaliya ka jira masaa'ib ka mid ah shaafi kale tama shan baa meesha masaa'ib ay ku harashay wax dhintay wax dhaawaca dadkaas kafankii iyo duugtii baan ka rabnaa dadka media la taagan waa haddii dariiqii Soomaalinimo uu jiro haddayna jirinna waxay ahaan jirtay bay noqon maanan waan aaranaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waan aaranaynaa waxaa maanta koow iyo laba hebel shan baa hadda media ayaa lagu soo qorqoray social media oo hebel baa u direynaa anagu nooma qoraa oo xaqiiqiyan haddii Ilaahay yiraahdo oo dariiqeeda naloo soo mari waayo oo maartay nalaga qalbi waayo arrintaa meel baa wax naloo saaray way noo cadahay talaabadeedana waan qaadanaa insha Allah. Assalaamu calaykum.